Wabiga Shabeelle ayaa ku fatahay dhowr tuulo oo hoos yimaada degmada Mahadaay oo kamid ah degmooyinka gobolka Shabeellada dhexe. Tuulooyinkaasi waxaa kamid ah Buurfuule, Xudur Ciise, Kulmisirey iyo Shiidla Bare. Maamulka degmada Mahadaay uu hogaaminayo gudoomiyaha degmada Mahadaay Axmed Xuseen Afrax ayaa gaaray tuulooyinkaasi iyagoo adeegsaday safar dhinac wabiga ah oo isticmaaleen dooni si ay ku galaan saameynta fatahadaas ay ku yeesheen bulshada halkaasi ku nool oo ah bulshada beeraley ah degmadii beerahooda ka soo go'ay lahaana fatahado cagta ay marsiiyeen. sidoo kale dadkani ayaa guryahoodii ka barakacay waxaana isu bedela qabow iyo kuleel. gudoomiye Afrax ayaa carabka ku dhiftay tuulooyinka ugu daran oo fatahadu ay saameeyeen. maanta waxaan joognaa degmada Mahadaay waxaan kormeer ku nahay oo aan indheeyeen xaaladda fatahada Wabiga Shabeelle uu ku sameeyay tuulooyin ka tirsan hoos yimaada degmada Mahadaay sida Buurfuule, Xudur Ciise, Shiidla Bare, saddexdaas tuulo iyo Kulmis afartaas tuulo aan kormeer ku sameeynay. waxa kale oo aan war ka haynaa afartaas tuulo aan kormeer ku sameeynay wabiguna aad ugu fatahay khaasatan Buurfuule iyo Xudur Ciise labadaas aad ugu dhiftay dalaga ka go'ay. gudoomiyaha dalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay jiraan goobo kale oo ay caratuur ku sameeyeen si Wabiga Shabeelle fatahadiisa looga badbaado. waxa kale oo ka socda Wabiga Shabeelle oo dagaal lagu la jira eji iyo Hurway iyo Calaag dagaal ka socdo waxaan kula dirirsanahay biyaha dhul badan oo gooyay oo ugu yaraan 1 hektar laakiin dadaal badan aan haynaa oo waa la tacaaluhaya. waxa kale oo ku goostay wabigu galbeed oo u goostaadana Wabiga Shabeelle Mahadaay waa kala baraa galbeedna waa u goostay meelba ma reebinba sida Diilaawe, Masuur, Duduble. Abubakar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka caasimada dawlad goboleedka Shabeelle magaalada Jowhar.